nin doonayay in uu caan ku noqdo oohin oo muddo kooban araga beelay. intaan u guda galin sheekada haddii ay tahay markii kugu horeysay aad ma soo booqato nagu soo biir mahadsanid. waxa uu doonayay in 100 saacadood oo xiriir ah uu ooyo ama ilmeeyo si uu u galo buugga dhacdooyinka adduunka lagu aruuriyo kuwooda ugu la yaabka badan rikoorna uu u dhigo. laakiin markii uu marayay daqiiqadii 45aad ee oohintiisa uu ku guda jiro waxa uu si ku meel gaar ah u waayay ama u lumiyay iftiinka argiisa. ninkan oo u dhashay dalka Nigeria waxa uu ku qasbanaaday in uu joojiyo falkaasi si cisbitaal loola degdego oo xaaladiisa caafimaad bal loo soo fiiriyo. madax xanuun, waji barar iyo indhaha oo god ku sii dhaco ayuu dareemay markii uu doonayay in uu sii wado oohintiisa ama ilmadiisa uu rabay in uu kaga qayb noqdo buugga lagu aruuriyo dhacdooyinka dunida. wixii ugu xanuunka badnaa ee ninkan soo mara waxay ahayd markii uu si ku meel gaar ah u lumiyay ama u waayay iftiinka ama nuurka argiisa oo indhoolo uu noqday saacado kooban. inkasta oo uusan u noqon sidii uu rabay dhacdadan, haddana waxa uu noqday ninka ugu hadal haynta badan dalkiisa iyo bulshadiisa Nigeria. ninkan waxa uu si fudud ku noqday caan dhalay oo waxa hadal haynta sheegida magaciisa ay ku badatay bulshada dalkiisa Nigeria. mar wax laga weydiiyay sheekada ninkan bulshada dalka Nigeria ayaa waxa ay siyaabo kala duwan uga falceliyeen sheekadiisa iyagoo kula kaftamaya ama uga falcelinaya siyaabo kala duwan. waxayna sheegeen in ay lama filaan ahayd sheekada uu ninkan sameeyay.